baa lacagtii la tagteen oo lacagtii la dhacdeen kiradii hoolkaa la tagtay alaabtii السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسكو سو نقدو نيسو marka la fiidiyo cusub hadii muuqaalka cusub tahay fadlan subscribe saar like na saar hadii aad bog maastay soo dhow muuqaalka. Take time will you be mine I want do you wrong. maanta waxaan ka hadli doonaa muran yar oo ka dhex jiray fanaanada Hani UK iyo Shiina Culay. wadada ogeedeen Hani UK waxa ay show ku dhiganeysay wadanka Germany. waxa jirtay lacagyo la kala dhacay laguna kala dhacay showgii Hani UK. bal Hani UK iyo Shiina Culay waxa dhex maray aan wada dhageysano isagoo cod ah oo WhatsApp la isku diray. Shiina Culay walaalo ninkan aad fu'aad kala leeyahay ani asaga dhiilaan naga dhaxeeyay ma fahamtay in qof aan keeno aniga isaguna qof keensada hadda wuxuu ku leeyahay jinabi baan keenay maanta dhan buu Shiino walaalo meeshan ceeb baa ka soo socota diinta Ilaahow iga saar balaaya ka dhacaysa Ilaahow diinta Nabi Maxamed iga saar ninkan haduuna hadda saacadan la joogo waxa aniga aan rabaa lagu shaqeynaa dib kale fuck codkaan maqlaynay waa Hani UK waxa ay tiri ama ay u duubtay codka Shiina Culay waxayna ku tiri meesha ay show ku dhigayo waxba ka soo socda wala isku layn doona calashaan bal Shiina Culay wuxuu ugu jawaabay wuxuu yiri isagana ila dhageysta. horta anaa ku baray wiilka ana iyo xaflad in meesha la igu qabtaan rabaa anu ma qabtaan ku yiri anaa cid iskiin baraya haddii wixii wax ka soo noqdeen waxa weeye cidda wiilashii hadda haystaan waa aniga adiga waxa ka hadlaysaa meesha ma yaaliine lacagtii meesha ka soo xirotay baa inta gabar ridda farisay baa lacagtii la tagteen oo lacagtii la dhacdeen kiradii hoolkaa la tagtay alaabtii muusikada lagu kireeyaa la tagtay hoteelkii lagu kireeyaa la tagtay waxa oo dhan waa kiiska iska waal baanan u arkaa lacagtii xoogaagii meesha ka soo xirooday is leedahay yaan lagaaga daba iman walaalo haddii aad qof wanaag raba tahay wiilashii anay ila joogaan anaana ku baraye de haddii kaale xisaabtan oo xisaab bax oo wixii meesha ka soo xiroodayna la kaalay wixii kharash ana walaalo iska bixi haddii aad tahay qof waxa dhacayana hadda qof waxa dhacaya tahay waxa ku leenahay haniyay dad sharaf leh baa ahayd sharaftaada ilaasho sharafkeenu kala mudnayn dadkii ehelka ahaa oo markaa tigidhka weeday ah ku soo cabaadayso tigidhka ku soo goyniyay oo emailka ku jiro passport numberkaaga iyo magaca u soo direysay baan anigu ahay marka walaal waxaan la kala mudnayn dadka la isma dhaho marka waxaan ku leeyahay walaalo sharaftaada shilin hasiisan baan ku leeyahay kaalay xisaab bax ehelkaagii baa wadanka wada jooga dadka la hadal kaalay xisaab bax maxaa lacagta xoogaaga u la qararaysaa 2000 miyaa kula weynaaday meesha ka soo xortay sida la sheegayso kaalay xisaab bax hoolkii kiradii lacagtiisii baa lagu leeyahay tii muusikaa lagu leeyahay hoteelkii baa lagu leeyahay ma dadka rabtaa inaad ku jirto waxaasi waa sharaf darro waa jirinimo weeye marka waxaan ku leeyahay samcadaada iyo sharaftaada uma fiicnee walaal ka joog baan anu ku leeyahay ninka imka hadlayna waa Shiina Culay wuxuu hadal badan soo wadaba wuxuu ku soo gabagabeeyay sharaftaada shilin hasiisan horta labadooduba si fiican bay u hadleen iyana si fiican bay u hadashay isaguna si fiican buu hadlay haddaba su'aasha meesha taalla waxay tahay yaa lacagta dhacay bal aynu dhageysano Hani UK nimka codka kale soo duubtay. Shiina Culay oo tuug dhalay oo baaster ah oo nacala aabihi ku yaala tahay aniga iyo adigana lacag baad ka hadlaysaaye Soomaali Maxamed baa ina kala saaraysa tigid baa shidan ku jaray war tuug baa tahay oo khiyaanaala tahay oo garac baa tahay ana hadda ku sheegay fucking baaster yahow Facebook live hadaanan madaxaaga u soo gelin Soomaali Maxamed wixii xafladda joogayna wixii xalay dhac markhaati bay ka ahaayeen wixii waxa sameeyay aduuha adeer macaan naag shilin sharafta codka imka maqlaynay waa Hani UK oo xanaaqsanayd waxa jirtay gabadh oo ahayd kaasheer ama lacag ururiyaha Hani UK showgalka ku dhiganeysay waxa ay tiri gabadh baa lacagtay ururinaysa lacagta show ka soo xaroota ama loo dhiibaya bal gabadha codkeedina ay wada dhageysanayadana waxay ku jawaabto iyo waxay dhaado inuu aflagaadeeyo waa khalad hanina ma aha fanaaniinta la dhaca Shiina Culay waa daaratay fanaaniin la dhacayo oo dhacday hore u soo dhacday ma aha fanaanad la dhaco alxamdulillah dadkeedii baa jooga mana aha qof mataqaana loogu booteeyo jarmalka hadaa ay ku booteen si waa diganahay
dee jarmalka waxba kama qaadi kartid waxna kama tiidin iyaduna waa naagsintiisanaanahay ma fahantay marka walaalow waxaan kuu dhihi lahaa waad ku dhex waalatay adduunka anu horta ma maqal waxaanay sheegayso in fanaaniin hore jarmalka waxaan oo kale ku qabsadeen balaan noo sii wada codka waxa kale dhil dhahdo kadib hadalkii iyo gebagabadii maanta dhan hadalka la saarnaado ma wanaagsan hadalku adigu gunta marka loo dhaadhaco mawduuca fiican laga hadlo wuxuu ahaa in sheekadan loo degay in hani la dhaca ayay ballantu ahayd niman badan 20 nin gaadhaya oo kuwa ana han dhacaan laakiin hani way fahantay hani beentii iyo waa maxay tahay dhicitaankii la dhacayay kadib sababtaasaa lacagta loo waayay oo loo qaatay dee waxayna tidhi hani UK way ka fahantay in lacagta la dhici rabay markaas sababtaasay lacagta ula baxsatay waa sidayna leedahay balaanoo sii wada codka ayay ku fahantay markay ka fahantay hanina digtooni bay gashay wanaa caqli leh oo digtooni bay gashay marka intaasu baa lagu haystaa hadda hani digtooni bay gashay waan aragnay saddexdoodba codkoodii aniga waxay ila tahay oo meesha ka muuqata in hani UK lacagta ay dhacday ama ay qaadatayba sababtoo ah gabadhuu kaasheerka ahayd ama lacagta u haysay ayaabayna tidhi way ka fahantay in lacagta la dhici rabay kadib sababtaasay u qaadatay intaan kaga tegaynaa muuqaalkana haddii aad muuqaalka cusubta ama YouTube channelka cusubta waxaan kaa codsanaa subscribe saarto oo like na saarto aad iyo aad baa ugu mahadsan waxaan idin leeyahay amaana